سليمان القانوني فرس isagoo fuushan buu dunida ku soo wareegay weeyaan intaas goob dagaal buu taagnaa uu soconayo faraska u fuushanaa waxay yidhaahdaan wuxuu ka taliyey oo ciidamadiisu bariya galbeedba u mareen saddexdii qaaradood ee dunida markaa la yaqaanay dunida markaasi maraykannadan inaynuguma xidhnayn australia waxaanina wax buuran ma ahayn oo la garanayo dunidu saddex qaaradood unbaa markaa bini aadamku boqortooyin ku dagaalami jireen waa afrika asia iyo yurub saddexda qaaradood ee la yaqaanaba alcaalam alqadiim barru wa baxru dagaal buu ka galay waxaa la yidhaahdaa waa boqorkii muslimiinta ugu badnaa ee si dhex taaga ee qabsada qalbi uruba yurub bartamaheeda futuuxaadkiisa dowladdu aabihii ka dhaxlay aabihii markuu caalamul islaami dhawaan mideeyey buu dhintay intiisii ugu badnayd markuu mideeyey aabihii laakiin dowladdu ka dhaxlay ilaa 6 milyan iyo badh kilomitir bay 6.557 square kilometers bay ahayd baa la yidhahdaa سليمان القانوني الدولة العثمانية مركو كتغينا حوالي 15 مليون كيلومتر به 15 مليون كيلومتر مربع به وحالا إذا هذا مددي ودقال كودي دقال لدو يسوقو هقامين يهر سعودي صدح بقول يلي احنا نقل عضاد يحسن مفرطة صدح بقول يلي احنا قلعة يحسنتا وفيسيد يدول كي لقالي شري واقي هوري af Soomaali qalcad waxaan ku dhahdaa wasal digyadan uu ku wareegsan yahay dhismahan faras iyo ciditoona ka soo talaabi karin waa dhismo dheer oo magaalooyinka waaga hore lagu wareejin jiray oo la iskaga difaaco fardoolayda iyo dagaalada cidda soo qaadayso dhan magaaladu cunno ku filan haday hesho oo albaabka xidhaan cid walba way iska difaaci karaysa yani dhulkii caynkaas ee qalacdii ama xusuuntii ama dhufaysyadii la samaystay inta badan magaalooyinka waaweyn baa lahaan jiray iyo meelaha muhiimka ah 360 kamid ah buu furtay bay yiraahdaan waqtigiisii muarikhiintu waxay ku tilmaamaan inuu ahaa أعظم الملوك dunida soo mara mid kamid ah boqortooyinkii dunidaba soo maray kuwii ugu waaweynaa mid kamid ah inuu ahaa waxay yiraahdaan wuxuu ka taliyay cawaasimta maanta la yaqaano caasimadaha dunida maanta la yaqaano Athens صوفيا بغداد دمشق اسطنبول بودابست بلغراد قاهرة بوخارست سراييفو تريون وحمانتا عاصمة لا شيغين تودا ugu badan leh ee Yurub tabari iyo Balkaniska ah ama caalamul islaami ah intaasoo boqor mar wadaha ilaa Tabriz laga gaadhayo waa caasimada Safawiyiin Iran qaybteeda waqooyi bay ku taala waxa lagu tilmaamaa waqtigiisii inay gaadhay dawladii Uthmaniyiintu heerarka ugu sareeya ee dhaqaale iyo bulsheed guulihii siyaasiga uu gaadhay waxay xoojiyeen qaybta dhaqaale iyo bulshada wadanka uu lahaa waxa la sheegaa inuu yahay nin dib u soo nooleeyay mabaadi'il cadli wal qaanuun سليمان القانوني وقتيسي لما ودن جيرين وقتيسي السلطان سليمان با لو ودن جيرين وادن باي تاريخيانadu qorayaan ba waxa loo bixiyay ninkani qawaaniintu jideeyay cadaalad ku saabnaa daraadeed ba loo bixiyay سليمان القانوني reer galbeedku iyagu waxay qoraan سليمان the magnificent bay yiraahdaan سليمان kii weynaa ayaa la yiraahdaa سليمان العظيم kutub taariikh reer galbeedku markay ka waramayaan waxa lagu tilmaamaa saltanadiisu inuu ahaa akbar dawla wa aqwaha fil aalam qarnigii 16aad dawladii dunida ugu xoog badnayd ee ugu weynayd buu ahaa